hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya ayaa shirkii ugu horeeyay oo lagu dhisayo guddiga wada shaqaynta hay-adaha ka howlgala barxuduudeedyada Galmudug kuna saabsan horumarinta maamulka xuduudaha ka daahfurtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. hay-adaha booliiska iyo nabad sugidda, wasaaradaha ay qusayso horumarinta maamulka xuduudaha iyo bulshada rayidka ayaa ka qayb galaya shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah. Safiye Maxamuud Shire oo ah la taliye sare oo dhanka sharciga ah ayaa ugu horeyn ka waramaysa shaqooyinka guddigan la doonayo in la dhiso iyo ujeedada ugu weyn ee hay-adda socdaalka Soomaaliya ay higsanayso. hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda kaligeed mas'uul kama noqon karto barxuduudeedyada dalka oo dhan, ama ha ahaadaan bad, ama ha ahaadaan airport, ama ha ahaadaan furdad. meel walba maxay ahayd mas'uuliyaddu waa mas'uuliyad wadareed la wada leeyahay. marka mas'uuliyadaas markii hay-adaheena qaran ay wada jir u qaataan, waxaan ku tilaabsan doonaa inaan la shaqeyno maxay ahayd kuwa dawladaha nala dariska ah. adduunyada maanta waxaa la gaaray qof walba waxay ogaatay, dawladdu walba waxay ogaatay inaan xuduud kaligeed ilaalin karinin. waxay u baahan tahay dawladdu inay la shaqeyso dawladda dariska si xuduudaas ay labadooda amnigooda u wada ilaaliyaan. Maxamed Cabdullaahi Aadan, agaasimaha laanta afraad ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya oo xarunteedu tahay Galmudug, ayaa isna sheegay inay muhiim tahay dhisidda guddiga wada shaqaynta hay-adaha ka howlgala barxuduudeedyada Galmudug oo sahli doona in la hormariyo shaqada. guddigaasi wuxuu mas'uuliyad u leeyahay in uu kontaroolo wadankiisa waxa ka baxaya iyo waxa wadankiisa galaya. hay-adahan way shaqeeyaan, laakiin inta badan hay-adaha barshaqada ay leedahay qabsata. marka hadda socdaalka jinsiyaddu waxyaabaha ay ku dadaalaysa waxa ka mid ah in guddigaasi asagoo shaqada wada leh uu shaqada wada qabto. si shaqada qaabka loo wada qabanayo aan u fahanno, hay-addu waxay soo diyaarisay sharciyad ay ku wada shaqeeyaan golahaasi. General Ibrahim Hussein, agaasimo ku-xigeenka guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya, ayaa hoosta ka xariiqay in Galmudug looga fadhiyo dhamaystirka hay-adaha looga baahan yahay inay diyaarka ku noqdaan barxuduudeedyada oo dhan. shaqada ay kaliya waxay tahay ninkan immigrationkii ama badda ka soo degay ama diyaaradda ka soo degay waa bini aadam ku shaqeeyay isagu. customkii wuxuu u fadhiyaa meesha wixii meesha ka soo degay maacuun iyo alaaba inuu kontrolo. booliiskuna inuu waxa uu kontrolo si kontrolo. bini aadamkan imanaya alaabtan imanaysa waxa laga rabaa caafimaadka meesha jooga labadaba inuu soco. alaabtan saxmata dadkan majrayn masuufiyiin saas u wada leeyihiin shaqada. unity-gaas wax ku noqonaya marka maadaama ay sidaa toon la kala maarmin. Galmudug waxaan ka rabnaa annagu immigration-dan waan keen way wada joogaan inta dhiman in reer Galmudug buuxiyaan oo hay-adihii kale ka maqnaa halkaas keenaan oo iyagoo isku duuban goob kasta ay ka shaqo galaan. inta horta ku boorinayna maadaama wasiirada inay maqlayo fadhiyaan. ugu dambeyn, wasiirka waxbarashada Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore ayaa daahfuray tababarka qaybgalayaashu qaadan doonaan 2 maalmood ee shirkan uu socdo. waxaa la rabaa marka in dhammaan laga faa'iideysto dadkaas khibrada ah oo halkan jooga. waxaan runtii aan uga mahad celinayaa agaasimo ku-xigeenka laanta socdaalka General Ibrahim iyo agaasimaha laanta socdaalka ee Galmudug Cawaale in maanta ay wada shaqayntaas iyo daadajintaas adeegaas maanta halkan la keeno dadka ka faa'iideysto oo meelaha kala duwan ka yimid oo dekedaha ee macnaha ka mid yihiin. waxaan rajaynaynaa inaad adinkana sii daadajisaan oo macluumaadkii iyo xogtii iyo tababarkii aad halkan aad ka qaadeen inuu noqdo mid idinku filan oo Galmudug aad ugu adeegi kartiin.